su-aasha hore waxay ahayd haddii weysadii intii aan maydhay kadib ee aan weysaystay aan cawrada taabto ma iga jabaysaa? jawaabtu waa haa. wixii weysada dhammaanteed buriyaa barhkeedna wuu buriyaa, waa qaciida soo maaha. maa abdala aljamiic abdala aljuz. sidaa daraaddeed haddii adigoo maydhigii sii dhammaynaya aada taabato xubnihii taranka dee ama maydhigii wada qubayso ama weysadii soo celi. ictikaafka haddii aan wada kari waayo inaan isku xidhiidhiyo 10 dambe markaan haleelo ma la iman karaa? haa. ictikaafku waa laba nooc, mid mutataabica iyo mid mutaqadica. ka mutataabicu waxa weeye kan 10 cisho loo fadhiisanayo ama 20 loo fadhiisanayo xaajo un mooye wax kale aan loo baxayn. laakiin qofkii duruuftu aanay u saamaxayn waa saynu u badannahay mar ha iska soo shaqaysto, markuu soo haleelo masjidka yimaadana kolkaasubuu niyoonaya, intuu fadhiyuunbuu ilaahay u qoraya. bixitaanka wuxuu u bixi karaa qofka ictikaafka isku xidhiidhsan ku jira waxaa loo yaqaano baahida insaanka, xamaamkii inuu cunadii soo cuno, soo yaro maydho, waxyaabaha. laakiin wixii fogfog baanu tegayn. su-aasha saddexaad waxay leedahay walaalkay sikada ma siin karaa? dhinaca kale aynu ka abbaaraynaa qaraabada inteen la siin karaynin. waxaanad siin karaynin asalkaaga iyo faracaaga iyo ooridaada, waa saddexdaasuma la siinay. aabbaha, hooyada, awowga, ayeyda, caruurtaada kuway sii dhalan iyo xaaska. intaa biilkooda kugu waajibay, marka waajib lama dhex gelinayo. laakiin waxa kale ee soo hadhay oo dhan walaalkii, eedadii iyo habaryartii iyo kamidii waa la siin karaa. ninkaas masaafatulqasrigu masaafada dumarku ka hadlay lagu guuriyo sax maaha. gabadha lagu guuriyo la baxs iyo masaafo waa in lagu celiyaa meherkii, waa faasi, weligii baa lagala baxsaday. dayntii baa ka badan raasumaalkayga maxaan yeelaa? dee waxaad sakaysaa ma jiro. laba qowl baa jiro, culimmada qaarkood waxay leeyihin qofka daynta lagu leeyahay isagaa sakaynaya. madaahibta qayb ka midina waxay leeyihin ma laha isagu iyo qofku ka soo amahdaale ha sakeeyo. marka qowlkaasaa la iska qaadanayaa, dadkana u dhib yar. dee qofka dad waxood haya iyagu u sheegayaa sakeynaya, laakiin isagii ma laha, milkigiisii ma laha, wuu intifaacsanaya, waa la maal siiya une ma leh. adigu daynta kaa maqan baad sakayn, dadkaa kalena ta adiga kugu maqan bay sakeynayaan. markaa kolkaad xisaabinayso tootalkaad isugaysaad ka jari. ilmaha yare soo dhacay ruuxa dumarihii ma ku ciddo tirsanaysa? haway ku ciddo tirsanaysa. hadduu yahay dee ilmo roonoo la garan karayo oo ay dhiciso, macnaheedu waxa weeye inay hadday ciddo ku jirto ciddadii ka dhammaato. tasbiixda sunnaha ma la baraarujin karaa qofka? haa. salaada sunnaha ah markuu imaamku gafo sidii faralkaba loo baraarujin jiray ayuunbaa loo baraarujinaya. subxaana allah ayaa la odhanayaa. dumarkuna sacaabadii bay isku dhufanayaan. macnaha faralku wuxuu leeyahay buu sunnuhu leeyahay, ilaa wixii sharcigu kala duwan mooyaane. waa iskaga mid halkaa. salaadan salaatuleylka guriga ma lagu tukan karaa? waa lagu tukanayaa. haa. asalkeeduba guriga u badnaa. rasuulkuna wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam, guryihiinna salaada qaybsiiyo xabaalaha ka dhigina. xabaasha ila laguma dhex cibaadaysto. markaa guriga qayb baad siinaysa salaadu si ay ugu barakowdo oo naxariis uu guriga ugu helo. dadka qaarkood dee way ku tukan karaan oo dadbaa jamaca uun ay ugu baxdaayoo hadduu guriga taga aan tukan karayn oo iska caajisaya. kaasoo kale jamaca u fiican. laakiin haddaad awoodi karayso inaad guriga wakhtigaa la seexdo ku tukan karayso, salaada sunnaha noocyadeeda kala duwan gurigay ku fadli badanta, faralkuna jamaca. sunnaha su-aashan kale iyaduna odhanaysa faralka hadduu qofku rukni ka tago sunnaha ma sidii faralkaa loo kabaa salaada sunnaha ah? haa. inaga qaaciido soo bixina wixii faralka axkaamuu leeyahay sunnuhuna wuu leeyahay. marka hadduu qofkii tiirarkii salaada mid ka tago salaaddii sunnaha ahayd dee waa inuu la yimaado sidii faralkaba loola imanayay. hadduu sunno ka tagana sujuudu sahwi baa lagu kabaya, faralkii unbay la midta. aamiin dadku way ka tagaane ma odhan karaa sunnaha jamaca? haa, waad odhanaysa. in laga tago ma aha. aamiin fadli bay leedahay.
رسولكنا صلى الله عليه وسلم حديث بدن بكل رجلي كفاتحة الآخرية إمامك ولا الضالين فقولوا آمين وما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه آمين تيسيا آمين تا يا ملائكة قفك إسوافقات ذنبك سالك فأبو رسولك صلى الله عليه وسلم مركا كلكم إمامك ولا الضالين لما يوي وإن كانوا ضمين بينه إنه كل واقع وإنه ضمية ولا الضالين مركا سويسك أورنا يا آمين مركا سال الراعنا يا صدح الآمينات بس كل عيات إمامك تم مؤمنين تا يتم ملائكة وحلقة يا بهدي أتكهر رئيستي وفيرسو أتكهر رئيستي إمامك ويسق ولا الضالين سي ودادو آمين تلاهضو تي ملائكتي يت إمامك إسكو بيج مية تادينا هو ذا كل عيسى مركا دم بداف كي بعد وايسة إلا وحلا ما وافق تأمينه تأمين الملائكة قفك آمين تيسو آمين ملائكة يوافق كور ما يوافق عيسى النبي وحول مرك ولا الضالين لما يفقولوا كذب كحكسية مركا هالكا وين هراين ويردك دقنا مركو إمامك صلاة لما يأينو كعيننا انتالو السلام عليكم تيل لبعض أورانين بين استاغنا مركا هال لما يلبعض الصلاة لبعض السلام كذب بالك إن سنها مركا لتكنا يا آمين تنا لقتها جمها إمامكنا وين وآخريا جمعنا وين وكرو آخريا haddii imaamkii salaadii uu ka baxo markaan ku xidhay ayuu sahwi ahaan uga baxay anigiina waan kacay isaga wuu xusuusta uu soo kacay miyaan ku xidhanaya hawaad ku xidhanaysa sideedaba imaamka marka lagu xidhanayo salaada adigoo oo bilowna waad ku xidhan kartaa adoo salaad ku jirana waad ku xidhan kartaa haddii imika halkan jamac ka samaysma agtaada waad ku xidhanaysa kii hore haddaad marka goosato ama wax ka sii noqdaan waad ku xidhan kartaa salaad dhexdeed cid waad ku dayan kartaa waad ku laba kaclaynaysa safarka dheer safaradan dhaadheer non stopka sidee loo tukadaa waxaa loo tukanayaa marka hore waxaad isku dayaysaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir waa fursadu islaamku ina siiyey maalan inaad duhurkii soo casarkii soo qadimtood waqtigii duhurka wada tukato haddii duulimaadku yahay casarka maqribkii inaad dib dhigtood xagga cishaa'iga geyso masaafo dheer baad ku heli markaa tan haddaad duhurkii tukato ood casarkiina ku darto maqribkiina xagga cishaa'iga u riixdo imise saacadood baad heli kartaa habeenka saacadihiisii oo dhan waad helaysaa waagu intaanu bariin baad tukan kartaa maqribkii cishaa'iga ood isku dib dhigta xaggan kalena duhurkii casarkii oo adiga isku qadimay markaa waqti dheer baa kuu soo baxaya jaaniska horta saasaa looga faa'iidaysta haddiiba se ay dhacdo inuu safarku ku soo beegmo salaadii adigoo hawada ku jira waxaad u tukanaysaa sidaad karto fattaqu llaha ma stadactum inta kartaan ilaahay ka cabsado u tukada wey markaa sarajoogii kolba intaad kari karto haddaad kari karto fursad yaroo meel yaroo bannaan inaad halkaa wax lagu qaybqaybiye iyo kursigan laga baxa exitka iyo meelaha haddaad ku tukan karta iskaga tuko lagu ogolyahay marmar bay qofka ka yara shakiyaan ama canaadaanay u diidaan kuwa diyaaraduhu yahay haddaad jaanis ka heshay iskaga tuko jabac badan un baan la samaynayna qof iyo laba iyo iskaga tukan karaan weliba markuu qaybtan business classka la yidhaahdo waasaca qofku siidkaaga hortiisa dee meel dhan baaba ku waasaco ood iskaga tukan kartaa siiba qofka gaaban ka dheeri malaha masaafo dheer buu u baahan yahay wuu iskaga tukan karaa adigu waxaad kari karaysa wey haddaad intaa kari kara wada sarajooga kursigaaga intoo istaagto markii sarajoogana iskaga wado marka dee fadhiga iyo sujuudana fadhiga ku sujuud waad kari kartaa kursigaaga inaad istaagto soo ma alaabta markaad raraysaba dee waa adigana istaaga markaa intoo sarajoog ku xidhatood faatixada ku akhrido markaad sujuudayso dee fadhiiso markii sarajoogana sarajooga bacid baa ku odhanaysa maxaa isu taagta dadka way la yar dadku salaada way la yar xishoodaan iyo cibaadada taas sax maaha mabda'aaga daacad baa loo noqdaa markaa wixii aan dhibaata kaaga imanayn adiguna aad qaban karta ee cibaadadii waajiba la kaalay ilaa ninkii xanuunsanaya Ibraahim ibn Xuseen markuu nabiga su'aalu yiri waan bukaasaan u tukadaa muxuu nabigu salli qaa'iman sarajoog ku tuko marka halkaa waxa laga fahmayaa sarajoog arkaanta salaada ku jira tiirarka aan laga tanaasulayn haddaad karayso haddii laguuba saamixi waayo ama aad dhacayso sida doonyahoo kale dee markaa fadhigu bay noqonaysaa inaad ku tukato
waa salaadii ku soo beeganta waqtiga hawada laakiin waxa la isku dayaa qadimaada iyo akhiraada in looga faa'iideysto inta badan subaxa ku soo yara beegma oo isagii aan lana qadimi karin lana akhri karin markaas oo kale tartiibtaas aad u tukanaysaa sara jooga fadhiga kolba intaad kari karayso way xataa haddaad sujuudi karayso waad sujuudi marka cibaadaduna istidaacadaas ay la socotaa وهذا ما أقوله وأستغفر الله دنبجني يكي والدك ما الله نافه عبادة ضرنا الله ينقى قبله والدك إن الله نحرسته إننا الله ينقى طبعا نحرسته وحين هاي نورنا إلى هاي نور بركايو خيرنا الله ينوافجيه وحين كبق قينية بلايو إن كان الله ينقى نبت قليو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك